السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي عبد الكريم محمد سركرم. maanta waxaan ka hadli doonaa insha Allah hadii la yiraahdo xanuunka loo yaqaano diabetes-ka ama macaanka ama sokorta. diabetes-ka maadaama uu bulshadeena aad ugu badan yahay oo runtii yani saameyn weyn uu ku leeyahay, maadaama xanuuno aan isbuuclaha soo qaadanay, marka maanta wuxuu ku saabsan yahay xanuunkeena isbuuclaha wuxuu yahay diabetes-ka ama sokorta, iyadana wax badan aan ka ogaano. sokorta marka laga hadlayo ama wax loo yaqaano glucose ama blood sugar-ka, waa chronic disease kaasoo ah in ama waxa la dhahaa waa in wax lagu qeexay inuu yahay maxay, yani wax loo yaqaano pancreaska inuu soo saari waayo sokor ku filan jirka, ama sokortii lasoo saaray inuu isticmaali waayo jirka oo loo bedeli waayo wax loo yaqaano energy oo muscleska iyo tissue inay isticmaali waayaan ayaa loo yaqaanaa sokor. taas oo qofka range-ga loogu talagalay sokorta yani above 200 inuu qofka ay ka badato ama 160. ma ka hadlano wax loo yaqaano diabetes, laakiin wax ka hadlana sida saxda ah qofka inuu qabo 130 wixii ka sareeya waxaan leenahay waa diabetes. haddii uu ka hooseeyo 99 waxaan leenahay wuxuu leeyahay qofkaasi low blood sugar. sokorta marka laga hadlayo waxa sababa way kala duwan yihiin, waxyaabo fara badan baa sababa, ama hormone imbalance baa sababa. waxa ugu horeeya marka waxaa sababa insulin deficiency ama insulin aan ku filan jirka inuu soo daayo pancreaska. taas marka ay dhacayso wax loo yaqaano insulin deficiency, yani wax loo yaqaano waxaa jira wax loo yaqaano metabolic disorders oo maxaan ku dhahay sida xanuunada ku dhaca wax loo yaqaano heartiga, sida blood pressure iyo waxyaabahaas. waxaa kaloo jiri kara wax loo yaqaano brain problem ama stroke. waxaa jiri kara wax loo yaqaano xanuuno badan oo caynkaas oo kale ah baa sababi kara. sidoo kale waxaa sababa yani xanuunkan loo yaqaano Cushing syndrome-ka ayaa isagana qayb ka qaata inuu sababo, khaasatan wax loo yaqaano dadka type 2-ga ama wax loo yaqaano diabetes type 2. marka xanuunkaasna isagana qofka calaamad badan uu la imaanaya, maadaama hormoonkan cortisol-ka yani inta badan wuxuu mas'uul ka yahay wax loo yaqaano stresska iyo xabaas, marka isagana qayb uu ka qaataa inuu sababo. calaamadaha lagu garto wax loo yaqaano diabetes-ka waxaa lagu gartaa number 1 qofku wuxuu isku arkayaa wax loo yaqaano frequency for urination, oo qofka inuu suuliga ku laalaabto waqti badan ama dhowr jeer inuu suuliga ku laalaabto oo dareemayo yani sidiisii hore waqti in ka badan inuu suuliga ku laalaabanayo. ama sidoo kale waxaa lagu arkaa wax loo yaqaano weight loss, oo qofka waxaa dhaca inta badan miisaankiisa oo kale inuu hoos u dhaco. waxaa kaloo qofka lagu arkaa wax loo yaqaano fatigue ama daal fara badan. waxaa lagu arkaa oo kale wax loo yaqaano high risk oo ah yani haraad fara badan ama oon fara badan oo biyo badan oo qofku qaadanayo. sidoo kale waxaa lagu arkaa hungry ama wax loo yaqaano baahi fara badan. sidoo kale waxaa lagu arkaa yani qofka yani already yani qofka immune destruction baa jira, qofka difaaciisa oo dhan hoos buu dhacaya. miisaankiisa ayana wuxuu yahay yani waxyaabaha ugu weyn iyana waa arko oo weight loss-ka ayana qayb ka tahay. sokorta marka laga hadlayo ama glucose-ta waxaa loo qaybiyaa type 3 qaybood ayaa common oo loo yaqaano type 1 iyo type 2 iyo wax loo yaqaano gestational diabetes. type 1-ka inta badan sidoo kale waxaa lagu naanaysaa ama loo yaqaana insulin dependency ama juvenile diabetes. type 2 oo kale common waxay ku tahay dadka waaweyn ama dadka qaangaarka, wixii adiga 18 ilaa 49 ilaa inta ka weyn, laakiin common intaasaa lagu arkaa. wax loo yaqaano gestational diabetes-kana waxaa lagu arkaa hooyada xilliga ay uurka leedahay, khaasatan adiga 24 week 24 isbuuc iyo ilaa 28 ama 24 adiga wixii ka weyn
ayaa inta badan lagu arkaa ay common ku tahay. sokortu keliya yani ma saameyso intaan keliya aan soo sheegnay, laakiin waxay saameyn ku yeelataa wax loo yaqaano sida keliyaha, waxa loo yaqaan heartiga ama blood vesselska, sidoo kale maskaxdoo kale ama stroke iyo waxyaabahaas ay keeni kartaa. waxay kaloo saameyna ku yeelataa wax loo yaqaano visionka ama indhaha oo kale, oo blindness-ka waxyaabahaas ay sababtaa ama vision problem. markaan ka hadlayno sokorta waxaa riski ugu jira dadka isticmaala waxyaabahan carbohydrate-ka u badan ama waxyaabahan macaanka u badan isticmaala, sidoo kale dadka isticmaala waxyaabaha dufan kale ama fat kale, sidoo kale dadka burburan ama obesity-ga ama overweight-ka yana qeyb ayay ka yihiin oo yani riski ugu badan iyagaa ku jira. sidoo kale dadka aan lahayn wax loo yaqaano lack of access-ka ama wax access ama waxa loo yaqaano aan midna aan sameyn ama socsocod iyo waxba aan sameyn ama fadhiga waxyaabaha ku badan. sidoo kale waxaa lagu arkaa oo riski ugu jira dadka waxyaabaha macmacaanka aada u isticmaala, fadhigooduna badan yahay. markaan ka hadlayno sokorta, maadaama dadka khatarta ugu jira aan soo sheegnay oo dadkii burburnaa iyo dadkii dufanka ku badnaa iyo dadkii waxyaabaha carbohydrate-ka aada u isticmaalayay iyo weliba dadka cholesterol-ka qabana yani riski ugu sii jiraan. marka waxaa looga hortegi karaa qofku number one inuu horta wax loo yaqaano miisaankiisa, haddii uu overweight yahay inuu miisaankiisa dhimo, sokorta jirkiisa ku jirtana uu gubo oo excess uu sameeyo. sidoo kale waxyaabahan carbohydrate-ka ama macaanka sida bariiska iyo baastada iyo waxyaabaha macaanka u badan inaan iska yareyno. sidoo kale waxaa yana yani lagaga hortegi karaa qofku inuu yareeyo waxa loo yaqaano daawooyinkan loo yaqaano steroidska, oo maadaama Cushing syndrome qofku uu riski ugu jiro. Cushing syndrome-na dadka xanuunkaas yani yana macaankana uu riski ugu jiro dadka qaba. markaan ka hadlayno sokorta yaa qaba yaase qabin, inta ugu badan yani dadka waxaa fiican inay ogaadaan ranjiga saxda ah qofku odhan karo xilligaas sokor wuu qaba iyo ma qabo. sokorta waxaa uu ogaan karaa qofku inuu sameeyo wax loo yaqaano test oo ama uu dhakhtar ku xidhan yahay oo doctor dependence uu noqdo oo dhakhtar uu ku xidhan yahay uu leeyahay. soomaalidana kule inta badan malihiin waxa loo yaqaano family medicine oo dhakhtar uu leeyahay family kasta mali, laakiin common yani waxaa jirta dhakhaatiir ku xiran tahay. marka dhakhtarkana talooyin uu ku siinayaa wuuna ku cabirayaa mar walbana yani waxaa ugu wanaagsan oo laguna ogaan karaa qofka inuu qabo sokor. first one hadda iska tagtid saaka intaa cuntay waxyaabahan macmacaanka bariiskii baastada iyo wax loo yaqaano isheeg canjeelo intaa cuntay, haddaa hospital tagtid shaah sii cabtid aad tiri diabetes-ga cabira ama sokoriga cabira, yani dee qofkii sokortaadu high bay noqonaysaa mar walba. laakiin waxa ugu fiican ama waxa jira waa jadwal aada u wanaagsan oo lagu ogaan karo qofku inuu sokor qabo iyo inuusan qabin. waxaa loo sameeyaa number one qofku wuxuu sameynaya dhakhtarku u booqanaya, dhakhtarka talooyinka ku siiyo horta number one waa qaadanaysaa. second waxaa ku xiga jadwal baa jira loogu talagalay oo lagu ogaan karo, kaasoo ah subaxdii markaad soo kacdo oo aada soo toosto inaad iska cabirtid sokortaada bal intay marayso. markaa wax cuntid ama breakfast kabacdi markaa wax cuntid kabacdina inaa iska cabirtid. markaa 2 saac kadib markaa wax cuntid 2 saac kadibna aad iska cabirtid. hal week asaa sameysid, hal week kabacdi waxaa ogaanaysaa maalinka uu kugu sareeyay iyo maalinka uu hooseeyay. waana sida ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo qofku diabetes inuu yahay. sometime waxaa dhici karta qofka acute diabetes inay iska noqoto qofku markiiba inuu kusoo boodo si qofka simply yani inay high iska noqoto, mar iyadoo normala oo qofka 200 ay gaadho qofka in la siiyo wax loo yaqaano daawooyin waxyaabahaas. laakiin waxaa ugu wanaagsan qofka talada ama waxyaabaha life cycle-ka in yani aad kula talisid in wax laga bedelo bas.
marka laga hadlayo sida lagu daaweeyo sokorta ama glucose waxaa lagu daaweeyaa number 1 horta qofka waxaa fiirinaysaa range-ga ama levelka ay sokortu markaa joogto haddii uu qofku qabo waxa loo yaqaano khaasatan type 1 hadduu qabo inuu kala qaadana type 1 iyo type 2 kala qaadana type 1 ko kale waa dependency insulin qofka yani that time yani mar walba waa inaad insulin siisid oo qofku yani ma joogi karo 2 saac ka badan insulin la'aan ama inay high noqoto ama inay low noqonayso marka sababta tahay waa insulin dependency way taas laakiin type 2 oo kale qofku markuu qabo waa tan ugu wanaagsan oo la manage gareyn karo waxa ugu fiican waa in horta number 1 waxyaabaha macmacaanka carbohydrate ka badan inuu iska daayo second inuu sameeyo haddii uu buuran yahay excess inuu sameeyo haddii uu dhuuman yahayna excess inuu sameeyo labadaba aad bay u anfacaysaa then qofka intaa marka loo sameeyo haddii qofka ay samayso wax loo yaqaano ay si tartiib hoos ugu dhacayso يعني قف اللي يفسي كل كيسون بالقولة اللي إنه وحكي بدرو لكن هدي أي شرط واحد لو يقانو أنتي سوى سميني هدي هاي تاي تاتي قفك واحد كهران تاي دكتورك أو بغلو يسيدو مانج كريو يدويك أو مركزيو